qisadu waxay ku bilaabanaysaa sida tan. waxaa jiray qoys caan ku ahaa edeb wanaaga iyo ku dhaqanka diinta islaamka. hooyada iyo aabaha oo ahaa laba qof oo aad u wanaagsan waxay si wanaagsan u edbin jireen caruurtooda oo ka koobnaa 3 wiil iyo 1 gabar. gabadha oo caruurta ugu weyneyd waxay da'deedu ahayd 20 jir, waxayna culuumta shariicada islaamka ka baran jirtay jaamacadda ugu wanaagsaneyd ee wadanka ku taalay. balse ilaahay amarkii waa ay geeriyootay cudur maskaxda uga dhacay awgii. mana jirin wax kale oo cudur ah oo ay sheeganaysay. waalidka dhala gabadha ah oo ahaa dad aad u wanaagsan waxa ay ku qanceen kuna sabreen qadarka Allah subhanahu wa ta'ala, waxayna aaseen gabadhooda xilli haween ah. markii ay gurigii ku soo laabteen bihii waxa uu dareemay daal iyo hurdo daran, waana uu jiiftay. balse isaga uu hurday ayuu ku riyooday gabadhiisa oo leh aabow caawi. aabihii waa uu soo booday, waxa uuna isiri waa fal sheedaan, waana uu ka acuudu bilaystay. waxa uuna ku laabtay hurdadii. mar labaad ayuu maqlay codkii hore codka lagu eg gabadhiisa ayaana kaalmo weydiisanaysa. aabihii waxa uu dareemay argagax, waxauna naftiisa ku yiri gabadhaadu waxay ahayd gabar wanaagsan oo alla ku xiran ee maxaa loo cadaabayaa. waxa uu go'aansaday inuu aado dhanka iyo qabrigii gabadhiisa, waxaana ku dul arkay raad iyaga oo saacado ka hor ka tagay raadkaasoo ka dambeeyay. waxa uu go'aansaday inuu baaro oo uu arko sida uu yahay jirka gabadhiisa, balse gabadhii qabrigii kuma jirta. waxaa sii ziyaaday argagixi aabihii wanaagsanaa ee dhalay gabadha wanaagsan. waxa uuna si tartiib ah u dareemay iftiin ka soo baxaya daaqada guri qabriga u dhawaa oo uu deganaani sixroole ah oo waardiyeyn jiray qabuuraha. markii uu tegay gurigii oo uu galay waxa uu arkay ninkii oo gabadhii meydka ah agtaal. baaritaan kadib iyo boolis yimaaday kadibba waxaa la ogaaday in ninkan waardiyaha ah uu doonayay inuu kufsado gabadhan meydka ah. waxaana mahad leh ilaahay marna aan dayacin addoonkiisii muslimka ah ee nolol iyo geeriba